soo istaagayaan leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu dee wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka qaado xoog kaga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير شفتي ميكس توديدي كجوجتي هادي أد بني سنة ولكن على شان مر لباديو مقال حسب هادي أد بدو ماسن إذا وشدي فيديو من تاتي ولا نقول جوجو بقولك بقولان كاغا مد علينا تاتي ولا نقول صبري جانا سبسكرايب صار هادي أد بدو ماسن تي ملك سود مدس مرد كجوجتي وعني رشانيا كل يكون يوم إن مالمان حنفر بدن بس سوق ساود حوريق سي هذا الهين بدن باجرتي كبر سوماليد بالله هلي محايبة تري هو استوى مريسي رجع بيتي دمر كات كوفستين برامشان نوع عز السوق كجري halkaasaan bal ka daba geyn doonaa iska daba tegi doonaa inkastoo warbixino fara badan laga soo saaray balkaas isla toog doonaa waxyaabo fara badan oo laga aamusi karaa qabiil iyo qurun iyo istawdare waa la diidi karaa laakiin waxay ku qotontaa waa dhaqan iyo diin mar haday diinteeni iyo dadkeeni iyo waxaana wiisir kale wuxuu mar haduu ku qotomana xaqiiq weey qofku inuu ka hadla waa waajib saaran oo qofka binaadmiga Ilaahay ku waajibiyay raadama halkaas isla taagi doonaa gabadhani xaalkeega waxa kaloon xitaa ku sameeyay xog raadis fara badan baaniyada lafteeda ku sameeyay video hore sameysay backgroundkeega hore waxay qaban jirtay maxay ka shaqeyn jirtay gabadhan maxay tahay soobahan maxaa ku kalifay waxa soo dhan oo iska dawreega ka bacdi waxaan la wadaagayaa xogo fara badan oo dadkani ka qarsoon insha Allah bidmillah karim soo dhawaada marmarka aan fiirinaa horta wareysiga laga qaaday ee TV-ga uu ka qaaday home cable kaasaan fiirin doonaa ay casharka ugu dhigaysay dhaqanka Soomaaliyeed rag iyo dumarkana ay soo kala dhex gashay iyada wax kale ka sheegaysay laakiin balkaasaan fiirin doonaa insha Allah bidmillah karim marka hore sidoo meelaha marmaraysa dee garanayo yaan la sinaysaa waa niman waxa sinaysanaya waa niman waxa wax kufsanaya waa niman haddana waxa oranaya saasina ma qabatay saa naga daayay ilaa culimadii ay soo istaagayaan leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu dee wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka qaado xoog kaga qaado waxay aaminsantahay ninku hadduu gabadhiisa wax ka qaato inay kufsi waa kufsi diinteenu waxay ina tiri marka gabadhaada marnaba qof bini aadana jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adan kuydinayahay xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay gabadha wuxuu xaq ninkeygu ugu leeyahay wax kasta oo nafteeda ku saabsan hadayna cudurdaar xanuun iyo wax la mid ah jirin Ilaahay baa ku waajibiyay waa waajib saaran wax maaha laga soo maanguurin karo dhaqamo kale iyo wax kale dumarka Ilaahay baa karaamo siiyay oo sharaftoodana sarreeyay laakiin ninkeygu wuxuu xaq u leeyahay wuxuu ka rabo inuu helo hadayna jirin cudurdaar waxaan ku dhaaday la taaban karo oo Ilaahay jideeyay aanu ahayn haddaba intan inuu ku hor dhicin maxay uu ka yiri culimadu ama diinteenuna maxay ka qabtaa waa sheekh tirir oo ka hadlaya xaqa uu ku leeyahay ninku naagtiisa wax ka hor joogsanayaan jirtaan haday xanuunsanayso way u sheeg waari kari haday daahir ahay way u sheeg haday cibaado ku jirto xaj iyo soo waajiba way u sheeg waqtiyadaas oo kala ma qasbi karo amma inuu codsiga soo jeediyo ma wax cudurdaari hadii aanu jirin galbadii ma diiri karayso haday diidana malaa'igtu inay u calaysantahay ayaa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sida uu tilmaamay xadiidkii Bukhari ku sugan culimadana daba jawaabtoodii gabadhay Soomaaliyeed waxa tiri waxaan u doodaa xuquuqda dumarka ka maqanay waa maxay dhaqanka islaamka ama Soomaaliyada dumarka dhibay waa maxay xageed ka keentay xuquuqdan adigu ma ka war haysaa Ilaahay meesha uu dhigay dumarka iyo sharafta uu siiyay Ilaahay baa siiyay dumarka muslimiinta sharaf iyo ciisi iyo karaamo idina ma gumaysato idina xoog waxba kaga ma qaadaso Ilaahay baana isku xalaaleeyay Ilaahay baana jid u sameeyay
aanan uu ku jirin mugdi iyo madow. gabadhay waxaad ku tilmaantay ninku naagtiisa haddii uu manaamnaha kaga qaadsa inuu kufsaday. ma ogtahay dhaqanka aad soo maanguurisay iyo dadka adiga ku maalgeliya ama dadka adiga nolosha macnaha dhaqankan aad wadato aad ka sidataa, ma ogtahay waxay xalaaleeyeen iyo waxay xaaraantinimeeyeen intay isku jiraan. waxay xaaraantinimeeyeen wax ilaahay baneeyey, nin iyo naag rabbi isku xalaaleeyey bay xaaraantinimeeyeen. waxay xalaaleeyeen nin iyo naag aan isqabin inay noloshay doonaan ay ku noolaan karaan ilaa for life intay nolosha ka dhimanayaan bay xalaal ka dhigeen. waxay xalaaleeyeen laba qof oo isku jinsi yihi inay isku tagaan bay xalaaleeyeen oo iyaga u dhaqan iyo waxa ay ku faanaan. halkeed ka keentay markaa dhaqanka sheegaya ama kitaabkan sheegaya inuu ninku naagtiisa hadduu u tago uu kufsanayo? xaqiiqatan walaashay, anigoon xuquuqdaada ku xadgudbayn, laakiin xadka aad istaagtay waa meel ka baxsan sharcigeenna iyo dhaqankeenna, meelna aanay kaga olin. bal haddaba gabadhay, adiga oo intooda marka meel layska dhigo, adiga oo la kulmay dadka waxaan u ololeeya, anay kuu ballan qaadeen inay ku maalgelinayaan, anay kuu ballan qaadeen inay noqdaan baadadkaad ku duusho, adigoo afkaaga ka sheegaya kulana kulmay Maraykanka, dad Maraykana iyo dad Yuhuud intaba. haddaad gabadhay muslimnimo sheeganayso, yaa kuu fasaxay inaad la kulanto dad dhaqano noocaasa wada? yaa kuu fasaxay inaad la kulanto Yuhuudi ama dad aanan diinteenna u haysta in lagu jeesuso kitaabka ilaahay diiday, rabbigii khalqayna aan rumaysnayn, oo ugu talagalay diinta islaamka inay burburiyaan, oy ugu talagalay hablaha Soomaaliyeed inay meel xun ku ridaan? yaa kuu fasaxay inaad la kulanto ood la wadaagto wixii noloshaada ku saabsan, oy kuu ballan qaadaan hanti oo kaa dhigto, oy kuu ballan qaadaan inaad noqoto baadadkii aad ku duulasay adigu? intaasoo dhan adiga oo sheegaya waa ku kan. imaamkeen oo kale u dhigmaa diinta maaragtay yuhuudda, laakiin magaciisa aal inay u yidhahdeen baan moodayay markii, oo aadna magacaa way ula baxaan. ninkii laakiin markuu aniga i soo wacay wuxuu igu yidhi magacayga cali baa la yidhaahdaa. cali, interesting. meel bookstore oo Barnes & Noble ku yaala areada Barnesville baan ku ballanayo iswaraysanayo, waxaan ku yidhi magacaaga aal baan moodayay. wuxuu yidhi cali baa la yidhaahdaa, aalna waa la yidhaahdaa. familygaygu waxay ka yimaadeen Algeria, Yuhuudi Algerian nahay ee laga soo baacsaday. marka anigu first generation waxaan ahay Israel baan ku dhashay, laakiin familygaygu halkaasi ka yimaadeen. marka adeerada iyo cali baa la yidhaahdaa, kuyaga meelaha ku dhasha. ninkan lagu ballamiyey sidaad u afkaaga ka sheegtay waa nin Yuhuudiya ee lagugu talagalay qarashkaaga iyo nidaamkaaga inuu bixiyo inuu noqdo baadadkii adigu aad ku duulasay. waa ku kan adigoo la kulmay macnaha dadka noocaasa. waxaan ku kala tagnay, waa ku caawinaynaa bay yidhaahdeen, nin baan kugu soo xidhaynaa, isagaa innocent out, wax walba secret coding iyo sida aad lacag u samayn kartid iyo ee dhaqankeenna iyo diinteennaba ka soo horjeeda, aanan u ogoleyn qofka muslimka nolosha ilaahay uu siiyey ama gabadha muslimada waxa ilaahay uu siiyey. walaashayay, adigoo intaas oo dhan oo gafa ku jira ama dhaqamo noocaas xambaarsan, halkeed ka keentay? weliba waraysigaaga marka la sii tixraaco waxa ku jirta in lagu ballan qaaday lacago iyo hanti meel kasta ood ka qudbadayso ama waxaad ka sheegto ama buugaagaad ku qaybiso ood faafiso fikirka iyagu ay rabaan. gabadhay, intaas oo shay adigoo sameeyey, yaa kuu fasaxay ummad Soomaaliyeed inaad soo dhex fadhiisatood haddana u sheegto wax ood ku tidhaahdo ninku naagtiisa wuu kufsadaa? xageed ka keentay? ummadda Soomaaliyeed miyaanad ogeyn inay yihiin dad caqli leh, aqoon leh, diin iyo dhaqan soo jireenanoo cid loodin karta aanay jirin? haddaad adu ina yahay
hungurigaaga siisatay noloshaada laakiin dadka Soomaaliyeed hungurigooga ma siistaan noloshooda way ka adag yihiin dhaqankooga iyo diintooda way yaqaanaan waxa u xun iyo waxa u wanaagsan xaaska iyo ninka wada nool way yaqaanaan dhaqankooga iyo waxay iyagu rabaan ilaahay baana u jideeyay inantaada yaree madaxa qaawan lihi halkeed maxaad u sheegi kartaa ummad Soomaaliyeed oo sheekh iyo shariif iyo aqoon bale halkeed ka keentay dhaqamada noocaas id xambaarsan tahay gabadhay anu waxaan ku oran lahaa tartiibso meeshii lagu soo diray maaha meeshii abriis uu ka galayna xaqiiqatan maaha ummadda Soomaaliyeedna cid ay gabadheeri waxay doonto u sheegi karto waqti maaha waan ka xumahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqanaa in ay qof kasta oo dhaqamada noocan xambaarsan ama fikir kala aaminsan oo bulshadiisa la dhex yimaada inay fiiro gaara u yeeshaan ogaadaana xaqiiqada dhabta wax kasta walaal Ilaahay baa jideeyay gabadha Soomaaliyeed ama gabadha muslimadana sharaf waxa ugu filan sharafta Ilaahay uu siiyay xuquuq adigu u wadood u sidoo aad wax ugu tari kartaana ma jirtee marka hore naftaada wax ugu tar marka hore taadan meelaha qaldan wax ka raadisay horta soo celi dariiqada toosan ee Ilaahay uu ku jideeyay rabbigaana u soo noqo ha ku xadgudbin dhaqankaaga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo sharafta muslimiinta ha noqon baalal dad ajnabiga ay ku duulaan ha noqon qof qaadata fikrad kale oo dullinimo iyo daciifnimo ay ku jirto ummadda Soomaaliyeedna taasi way ka dharagsan tahay dad waxa soo kale loogu sheekayn karana maaha ummadda Soomaaliyeedna waxa leenahay meel ka soo joogtiin waa inuu qof kasto muslina ama qof kasto Soomaali ogaada qofka dhaqankiisa iyo diintiisa xadgudubka ah bulshadana ku dhex jiro ilgaarana loo yeesho aad baad u mahadsantihiin walaalkiin Cali Jaamac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.